بسم الله الرحمن الرحيم anigoo Batuule Cismaan Maxamed oo ku nool magaalada Hodan maxaa leedahay Danxaaq waxaan idin sheegaa oo inta u soo fariistay waxaan la hurdi waa la hergeli waay oo dhibaato ah walaalkay oo qabri ku jiro nimanka waaweyn oo meesha soo fariistay gar kale oo sheeganaya Maxamed Cismaan Baarba annaga beeshayna ka soo jeeda dhahay dadkaas aan rabaa warkooda inaan beeniyo warkaas wax kama jiraan waay ilaahay oo ma cabsanin qabri iyo qabuur ma fiirinin su'aasha aakhira ma fiirinin oo ma cabsanin ilaahay aniga Batuule Cismaan Maxamed inta nool adduunka nool aabay waxa uu dhalin anaaka nool aabay waxa uu dhalay oo dhaafay markuu dhimanay aabay todobaan asdaafay adduunka markasta saddex gabdhood iyo afar wiil marka alxamdulillah anay walaalay kala waa dhinteen hadda adduunka ilaahay waxaas ku igu reebay aniga iyo walaalay waxay dhaleen ciidaas ka badan oo joogaan walaalkay Maxamed Cismaan Baarbane adduunka laba uu ka dhalay wiil iyo gabar Maxamed Cismaan hadda idin sheego wuxuu ku dhashay baar dheere wuxuu ku soo diin bartay dugsi ku soo bartay baar dheere xamar oo imaaday anaga sheegayna ma jirin laakiin sheeg siin ku qabno maxaa leeyahay xamar oo yimid xamar oo iskool ku dhamay xamar oo shaqo ka tagay ninka raani oo ahaa nin furdada hata baabuur kulaha ahaa nin la yaqaan waay anaga hadii qolo ahaan idin sheegan qolo ma naqaan anaga dadkayna tama oo qolo qabiil hadda idin sheegan dad oo tunni aan nahay oo taxfaraad oo idweere oo reer abla aboole aan nahay anaga dadka aan la dhalanay reer Umar sheego haddaad maqasheen Cali Umar sheego haddaad maqasheen dadkaas aan la dhalanay kan kala faqay xaaji abiis ninka la dhahay baraaw xukuumay aan awoowahayna ahay marka annaga dad la yaqaanaan nahay yaan dadna lagu kahi dadna mabana lagu kahi karaba anaga dad lagu kaabamanin dad caan taariikhdooda caan waxay soo sameeyeen caane aboowey leegada u soo halgami leegada dadkaas aasoo ku jiray dadkii gabanimada u soo rafaaday u soo xakaariyo ahay intii luuq la soo bursanay kabaha laga soo qaato la joojig dhaw leega hunkeed le ya marka anaga leegadan ku dhimanayni wala hataa ninka weyn oo si ka weynay Maxamed Siraajil dhahay leegada ku dhimanay ninkii leegan ahay dhahay wax xijaabkiisa ku jiro waa siinay marka anaga leega dad xurnimada ku dhashiyaan lahay waa ku dhalanay anaga maanta si yaal manihin dad xurnimada ku dhashay oo ka soo jeeda asaaska Soomaali ka soo jeeda aan nahay yaana nalin hebelaan la soo jeeda afkiina waaba ka soo baxay mar dambe yaa laga maqlay waxaas waa ceeb dadkay dhaliya jooga aniga oo aabay dhaliya nool saaway waxaas oo kale ceeb waay walla wax la dhahi karo ma iimaanka Allah idin sugo anisaas leedahay iimaanka Allah idin sugo dadkan oo dhinti dadkii wax ka raadinayo iimaanka Allah ku sugo Maxamed Cismaan ana wila dhashay ana aabay dhali ana isoo korsaday makaste marka dadka aan arkay oo meesha soo fadhiistay dhalinyaro iyo duqooshin waa wax yaab leh waa wax adduunka lagu arkay oo la maqan anaga xaadir la leeyahay anakaas naga soo jeeda wali ma la maqray umri wax la maqlay waay adduunka ninkii nool maxaa aragtay ku laaban waay marka Maxamed Cismaan Baarba farciisi iska dhaafay dadkii dhaliya nool xamar hadda waxaa ku nool Cabdirasaaq Cismaan ku nool Cabdirashiid ma andina kan wiliibana ku nool Cabdicasiis hal horta ma tirin kara laakiin wixii asaga walaalkiis laxmi dhalay wixii walaashiisa dhashay aniga waxaan dhalay adduun meesha meel la joogin male intii America intii maxaa la yiraahaa isha Ingiriis intii Canada intii Soomaaliya baar dheer baydhaba hataa wax dhalidayn waa joogaan
annaga dad ona soo koobi kara ma nihiin gun maxaa dhahaa gaanaan ilaahay naga dhigi ilaahay mana yaraynin dad lagu tilmaamana ma nihin annaga baarba anagoo naga dhashay ay la dhashay anaa walaashiis maxamed cismaan baarba nin kaloo soo sheega karana male ninkii soo sheegtayna caaqara beelas isku ridi aaqaro adduunya isfikiri aaqaro maba fikirin qofka waa dhimanaysaaba isla dhihi si usoo dhintaa loo wada dhimanaa ogaada nin joogaayo malehe ogaada haddaba isku naqde ilaahay u naqde ilaahuna cafi dhaha